dhalinyarada ku dhaqan gobolka Gabiley iyo qaybaha kala duwan ee bulshada oo maanta la hadlay telefishinka SBC ayaa waxa ay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo maalmaha soo socda ku soo foolay gobolka Gabiley ugu baaqeen in uu maalinta uu imaado magaalada Gabiley uu la kulmo dhalinyarada gobolka Gabiley waxana ay sheegeen gobolkii codka badan siiyay soo madaxweynuhu sidii aanu ugu lisnay aanu nagu hambaynin waxaan xaggan madaxweynaha baaq ugu jeedinayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweyne sanad kasta timaado 4 qof waxa lagu soo xulaa shaqaalaha dawladda hoose ah oo ay ku soo xulaan maayarka iyo qodan golaha deegaanka oo waliba shaqaalaha dawladda ka mid ah waxaan la madaxweynaha wada magaaladaadii 4 qof oo shaqaalaha dawladda ayaa lagu soo xulinay magaalada xaqiiqooyinka ka jira iyo waxyaabo badan ka jira magaalada inaad ka ogaato waxa weeyaan kulamada aad sameeyso markaad gobolka Gabiley timaado ee aad laba kulan badan sameeyay kulanka odayaasha kulanka dhalinyarada hadaba kulanka dhalinyarada sida ama systemka ruuqlo kulansiya ama system sax ah oo matili kara gobolka Gabiley waxa lagu heshiiyaa 4 qof oo shaqaale oo ka shaqeeya dawladda hoose isla markaana sida message gaar ah oo cid gaar ah u soo dhiibtay waxa weeyaan in ay xildhibaanada golaha deegaanka ee shacabka masaakiinta ay soo doorteen waa inay soo xulaan dadka hadlaya ama dadka la kulmaysid bulshada gobolka baynu la kulmo waayo waa madaxweyne qaran saddexda xusbiba madaxweynuhu yahay Soomaaliland oo dhan buu madaxweynuhu yahay macaarid iyo maxaafid buu madaxweynuhu yahay ka shaqaysanay ee xusbiga u shaqeeya in la kulmiyo oo inta la kulmo la isku xidhnaado aad baan u jeclahay fariinta aan diraya waxa weyn madaxweyne markaad Gabiley timaado ee habeen ku dhaxdo ama aad kulama sameynayso waxa dhacda in dad khaas ah lagu soo xulo dadkaas oo muraayad green loo xiro mudane madaxweyne dadkaasi xaqiiqda dhabta ah ee Gabiley taale ku sheegi maayaan way ku dadi doonaan wadad la soo ururiyay annagoo dhalinyarta gobolka Gabiley waxaanu doonaynaa madaxweynaha iyaga mar walba uu yimaado gobolka Gabiley waxana uu la kulmaa dad gaar ah amba uu jigaara mar walba waxaanu jeclaan lahayn maanta haddaan dhalinyarta gobolka in aanu chance helaan kula kulno madaxweynaha iyaga